maxaad ka taqaanaa fanaanka dirbijiifka ahaa ee magaciisa ka taajiray abaalaaba lacageystay kadibna xaaskiisa meel cidlaah uga tegay qofka aan ka hadlayno waa Sharma Boy oo soo bandhigay jaceylkiisa cusub wuxuu uga tegay marwadiisa malyuumaanka yay tahay xaaskiisa cusub uu soo bandhigay intaas iyo in ka badan ku daawo warbixinteena marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan leeg saarto oo share gareysa saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook ee guuxa bulshada oo aad follow dhahdo Sharmaake Cabdinaasir Maxamed Sharma Boy wiilkii ku dayacnaa wadooyinka waaweyn ee Muqdisho balse awoodda isbiday ayaa soo bandhigay xaaskiisa cusub ee Leelo Ubax taas oo ka dambeysay in si degdeg ah ku tago Mareykanka Sharma Boy ayaa telefoonka ka qaban waayay marwadiisa dheef iyo dhib la soo qaybsatay ee malyuumaanka adriishada mariixaan ee jooga dheer ay u haysay wiilkiisa curadka ehel iyo asxaab ayay ku dacweysay balse waxaa jawaabtiisa u dambeysay markii uu joogay dalka Afrika ugu faqrisan ee Zambia Sharma Boy ayaa noqday abaallaabe ilaabay saaxiibadiisa ka soo saaray mugdigii iyo daryeel xumadii wadooyinka Muqdisho ku haysatay isaga oo ismooday boqorka Ingiriis ama ilma taaba tulmoon boqoradiisa cusub Sharma Boy ahaan way ka weyn tahay laakiin dhaqaale ahaan ayaa wax walba kala weynaaday wuxuuna xirtay dhammaan baraha bulshada iyo lambarkii lagu yaqaanay wuxuu ku raaxaysanayaa qabowga iyo nolosha cusub ee uga bilaabatay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Sharma Boy wuxuu noqday fanaanka 2022 qaada heestii ugu anshaxa xumeed Soomaali badanna ka yaabisay heestaas erayadeeda waxaa ka mid ahaa lugteeda saddexaad qabso iyo fooraarsi iyo erayo lacayn ah balse Soomaalida ayaa aragtiyo badan ka bixiyay kuna tilmaamay Sharma Boy mid xigmadii ka dhamaatay kana soo hartay in uu dadku aflagaadeeyo haddii aad ku cusub tahay barteeda Facebook ee guuxa bulshada waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan leeg saarto oo share gareysa saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook oo aad follow dhahdo mahadsanid maxaad ka taqaanaa fanaanka dirbijiifka ahaa ee magaciisa ka taajiray abaalaaba lacageystay kadibna xaaskiisa meel cidlaah uga tegay qofka aan ka hadlayno waa Sharma Boy oo soo bandhigay jaceylkiisa cusub wuxuu uga tegay marwadiisa malyuumaanka yay tahay xaaskiisa cusub uu soo bandhigay intaas iyo in ka badan ku daawo warbixinteena marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan leeg saarto oo share gareysa saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook ee guuxa bulshada oo aad follow dhahdo Sharmaake Cabdinaasir Maxamed Sharma Boy wiilkii ku dayacnaa wadooyinka waaweyn ee Muqdisho balse awoodda isbiday ayaa soo bandhigay xaaskiisa cusub ee Leelo Ubax taas oo ka dambeysay in si degdeg ah ku tago Mareykanka Sharma Boy ayaa telefoonka ka qaban waayay marwadiisa dheef iyo dhib la soo qaybsatay ee malyuumaanka adriishada mariixaan ee jooga dheer ay u haysay wiilkiisa curadka ehel iyo asxaab ayay ku dacweysay balse waxaa jawaabtiisa u dambeysay markii uu joogay dalka Afrika ugu faqrisan ee Zambia Sharma Boy ayaa noqday abaallaabe ilaabay saaxiibadiisa ka soo saaray mugdigii iyo daryeel xumadii wadooyinka Muqdisho ku haysatay isaga oo ismooday boqorka Ingiriis ama ilma taaba tulmoon boqoradiisa cusub Sharma Boy ahaan way ka weyn tahay laakiin dhaqaale ahaan ayaa wax walba kala weynaaday wuxuuna xirtay dhammaan baraha bulshada iyo lambarkii lagu yaqaanay wuxuu ku raaxaysanayaa qabowga iyo nolosha cusub ee uga bilaabatay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Sharma Boy
wuxuu noqday fanaanka 2022 qaada heestii ugu anshaxa xumeed Soomaali badanna ka yaabisay heestaas erayadeeda waxaa ka mid ahaa lugteeda saddexaad qabso iyo fooraarse iyo erayo lacayn ah balse Soomaalida ayaa aragtiyo badan ka bixiyay kuna tilmaamay Sharma Boy mid xigmadii ka dhamaatay kana soo hartay in uu dadku aflagaadeeyo haddii aad ku cusub tahay barteeda Facebook ee guuxa bulshada waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto oo share gareyso saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook oo aad follow dhahdo mahadsanid ka taqaanaa fanaanka dirbijiifka ahaa ee magaciisa ka taajiray abaalaaba lacageystay kadibna xaaskiisa meel cidlaah uga tegay qofka aan ka hadlayno waa Sharma Boy oo soo bandhigay jaceylkiisa cusub muxuu uga tegay marwadiisa malyuumaanka yay tahay xaaskiisa cusub uu soo bandhigay intaas iyo in ka badan ku daawo warbixinteenna marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan leeg saarto oo share gareyso saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook ee guuxa bulshada oo aad follow dhahdo Sharmaake Cabdinaasir Maxamed Sharma Boy wiilkii ku dayacnaa wadooyinka waaweyn ee Muqdisho balse awoodda isbiday ayaa soo bandhigay xaaskiisa cusub ee Leelo Ubax taas oo ka dambeysay in si degdeg ah ku tago Mareykanka Sharma Boy ayaa telefoonka ka qaban waayay marwadiisa deef iyo dhib la soo qaybsatay ee malyuumaanka adriishada mariixaan ee jooga dheer ay u haysay wiilkiisa curadka ehel iyo asxaab ayay ku dacweysay balse waxaa jawaabtiisa u dambeysay markii uu joogay dalka Afrika ugu faqrisan ee Zambia Sharma Boy ayaa noqday abaallaabe ilaabay saaxiibadiisa ka soo saaray mugdigii iyo daryeel xumadii wadooyinka Muqdisho ku haysatay isaga oo ismooday boqorka Ingiriis ama ilmo taaba tulmoon boqoradiisa cusub Sharma Boy ahaan waa ay ka weyn tahay laakiin dhaqaale ahaan ayaa wax walba kala weynaaday wuxuuna xirtay dhammaan baraha bulshada iyo lambarkii lagu yaqaanay wuxuu ku raaxaysanayaa qabowga iyo nolosha cusub ee uga bilaabatay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Sharma Boy wuxuu noqday fanaanka 2022 qaada heestii ugu anshaxa xumeed Soomaali badanna ka yaabisay heestaas erayadeeda waxaa ka mid ahaa lugteeda saddexaad qabso iyo fooraarse iyo erayo lacayn ah balse Soomaalida ayaa aragtiyo badan ka bixiyay kuna tilmaamay Sharma Boy mid xigmadii ka dhamaatay kana soo hartay in uu dadku aflagaadeeyo haddii aad ku cusub tahay barteeda Facebook ee guuxa bulshada waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto oo share gareyso saaxiibada aad la sii wadaagto sidoo kalena aad saaxiib igula noqoto barteeda Facebook oo aad follow dhahdo mahadsanid